directorkii filimkan sameeyay ee ka shaqeeyay directorintiisa ayaan dabcan markaan ku weecanaya Faisal filimkan adiga ka fikiray qaab sameyntiisa iyo sidoo kale waliba xataa duubista qayb weyn aad kala hayd in film la sameeyo waliba dadka daawanaya laga gado heer intee leeg ay u baahan tahay juhdi intee leeg ay u baahan tahay in la geliyo horta daacad ma san tahay filimka markii aad sameynaysid waa inaad waxyaabo badan oo ka fikirtaa horta ugu horreyn waa inaad sheekada diyaarisa aad dabcan aad dadka sii lahayd oo la matali lahay markaa sheekada diyaarisid waa inaad hesho dadkii matalayay marka dadkii matal aad hesho oo qof walba booski ku haboona aad siiso waa inaad noqotaa directorkii sheekada haddii uusan jirin director kale aad sheekadu dhiibaysid way kala baxdaa qofna waa writer qofna waa director laakiinse some action ka aan writing director haddii wax cinematography editing iyo sidoo kale dabcan codeynta dhammaan dabcan shirkadana u qaabilsan marka aad bay u adag tahay waxyaabaha ugu muhiimsan aan ka some action ahaan kaga dadaalno waxay tahay ereyada lagu hadlaayo inay noqdaan dabcan ereyo xiiso leh filimka dambaaris markii la daawanayo dhammaan hadallada ku jira waa hadal aad loo xiiseynayo la xarakeynayo dabcan qof walba doorkiisa uu xarakeynayo ninkaan noor doorka dabcan asi gabadha ay matalayaan waa door jecel aad iyo aad u xiiso badan ninkaan oo qaalid ah filimka laadarka ka ah qayb dabcan matalayo sidoo uu xarakeynayo asi yar kala daadir waa door aad u xiiso badan ninkaan oo askariga ah wadani ah dabcan geesnimada hadallada ku hadlaayo iyo sidoo uu hadlaayo dabcan waa si xiiso badan marka waxyaabaha ugu muhiimsan oo aan ka fikir waxay tahay dialogue ee dadka ay ku hadlayaan ama sheekada dabcan ay gudbinayaan markii laga soo tago waa inaad ka fikirtaa dabcan qaabka sheekada u duubi lahayd badanaa filimada dabcan waan ognahay qof baa writer kale qof baa director kale qofna waa cinematography qofna waa filmka qofna edit gareynayo laakiinse alxamdulillah horta intii ugu muhiimsaneed oo inta filimka lagu qabanay aniga isku haysto sheekada aniga qabto marka way ii fududeed ka aan ahaan inaan dabcan intaas aan isku aadiyo muuqaal qurux badan aan sameeyo si wanaagsan u hagaajiyo sheeko qurux badan aan bulshada u soo gudbiyo si dabcan dadka ay dareemaan in Soomaalideena ay ka weecan karaan filimada Hindiga ay weecan karaan filimada Soomaalida iyadoo aysan dheheen riwaayad Soomaali soo saartaan daawade sababta aad filimanta action ka u sameeysan sababta u sameeyo waxay tahay haddii aad filim jacayl kaliya ka sheekeyna haddii aad samayso dabcan horta way wanaagsan tahay filimada jacaylka in la sameeyo laakiin xoogaa yar waxaan isdhahay way sameyn karaan dadkaana dabcan way isaga filayn Soomaalida laakiinse markii la dhaho action iyo filimada howlgallada iyo filimada dambaarista dabcan Soomaalida gaar ahaan kuwa inta ku sugan dabcan waxaan isla way ku adkaan kartaa oo waxyaabaha dabcan aad wado u noqon kartid oo aad heli kartid dad fara badan oo kugu soo dabafeelo oo dabcan iyagana sameeyo filmaan kale taas ay u kaliftay inaan dabcan isku dayo waqtina aan geliyo inaan sameeyo film dambaaris ah waayahay heerka directornimada ma waxay ahayn wax aad weligaa jeclaan jirtay ma waxay ahayn wax aad kugu dhiiraday bal inaad film samayso iyo intarkeeda in laga fikiro marka koowaad muhiim ah goormay kugu dhalatay inaad film samayso adoo actor noqon karo oo laadir noqon karo oo qayb kala duwan filimka sameyn karo horta inaan film director ka noqdo ama aan film qoro waxay ugu dhalatay 2015 laakiin ma aanan qorin oo ma aan isku dayin laakiinse inaan hobigaygu ahaa oo aniga waxaan ka helay ayaa ahayd inaan sheeko qoro sababtoo ah markaa yaraa ilaa haatan dabcan waxa awood u lahay inaan sheeko qoro 2019 marka fikirka ugu dambeeyay igu dhalatay inaan dabcan isku dayo inaan sheeko qoro sheekadan qoritaan aanan ku ekeeno aan film ahaan usoo gudbiyo sheekada sababtoo ah macna qoraa waa la wadahay qofna dabcan hees qof markuu wax qoro heesoo ka dhigaa qof wax markuu qoro buugu ka dhigaa qofna sheeko ka dhigaa qofna gabayo ka dhigaa qofna film ka dhigaa ana marka qaab muuqaal ahaan inaan sheekada usoo gudbiyo dabcan aan ku fikiray waayahay heerka doorashada director maxaa looga baahan markuu qof film u dhiibaayo filimka qofka lagu soo darayo heerka doorashada maxaa looga baahan tusaale ninkan oo kale waxa filimka qaybta jacaylka ninka odaga wuxuu ahaa laadirkii ninkan waa asgari wadani oo ayo filimka ku jiray doorashadaas maxay ku timaadaa horta markii laga soo tago Samiir Qaalid iyo Nuur waa rag dabcan filmaan hore isla sameeynay waliba Qaalid filimkii ugu horeeyay iyo Nuur filimkii ugu horeeyay waa isla sameeyeen film waan jecelna la yiraahdo jiro aan ka soo laabo dambaaris oo soo laabto ama aan soo laabto dhanka xulashada qofka jilaaga ku noqonayo horta qofka life style-kiisa iyo sida dabeecadiisa ay tahay waa wax dhabta asiga oo jili karo adiga dabeecadada maanta diisan xanaaq marbeet ahayn adiga qof xanaaq loo filimku matali kartid ama laadar ma noqon kartid qof marbeet faraxsan qoslay oo degan hadii aadan ahayn dabcan jacayl iyo sheeko deganaan filimku matali kartid waxa ugu horeeyo oo qofku xulna waxay tahay wax asiga uu yahay ninkan qaar dabcan waa nin dabcan marka inta badan xoogaa aan muujinayn waxyaabo farxada iyo jacaylka aan ku wanaagsan qabaan marka loo fiiriyo sida daraad doorka laadarnimada
aanu xushay nuur markii loo fiirina waa iska miskiin waa degan yahay dhanka jecelka ayuu ku wanaagsan yahay sidaas ayaa dabcan iyo noqoto inaan ku xulo dhanka